Dowladda Ruushka ayaa xalay gantaal nooca balaastiigga ah ku weerartay hotel ku yaala magaalada Gravyirin ee dalka Ukraine, waxaana weerarkan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dad shacab ahi soo gaaray. Inta la xaqiijiyay, 4 qof ayaa ku dhimatay gantaalka lagu dhuftay hoteelka ku yaala magaalada Gravity, waxaana sidoo kale weerarka ku dhaawacmay dad ku dhow 30 qof oo kale, kuwa oo qaarkood dhaawacyo culus qabaan. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa si kulul u cambaariyay weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaaladaasi oo uu ka soo jeedo. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in hoteelka la duqeeyay ay degganaayeen muwaadiniin u kala dhashay dalalka Mareykanka, British iyo kuwo ka soo jeeda Ukraine. Waxa uuna xusay in dadkii ku sugnaa hoteelka loo gurmaday lana soo badbaadiyay qaar badan oo ka mid ahi. Weerarkan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka shaacisay inay joojisay xogihii sirdoon ee ay la wadaagi jirtay ciidamada Ukraine, taa oo niyad jab weyn ku ah dowladda Ukraine oo inta badan xogaha weerarada ku soo wajahan ay ka heli jirtay Mareykanka.